inagu se waxaynu moodnay ingiriisiguna inuu cilmi yahay af soomaaliguna uu jahliye jahligu waa inaga maaha af soomaaliga jahligu waa inaga moodnay markaynu afkeena luminay inay wax fiican tahay wax fiican maaha waa dhaqan xumo halkii u dambaysay waa aqli liidasho halka ugu dambaysay inaynu afka luminaa Soomaali ilmahaagu noqon maayo haddaanu afka aqoonin diin fiicanna baran maayo haddaanu afqoonin naadir mooyaane waayo af kale qofku kuma dhergo mahma ana af ingiriisi iyo carabi garanayo waxaan doonayo kuma sheegi karo Soomaali baan waxaan doonayo ku sheegi karaa ilmaha Soomaaliyeed baan wax madaxayga ka guuxaya oo talaabin karaa laakiin afafka aan akhriyo uma gudbin karo ilmaha ku kobca waxaan dareemayo dhan idan haddaad ilmaha afka ka lumisaan in badanoo ka mida dhaqankiina waa ka tuurteen in badanoo ka mida diintiina waa ka tuurteen laakiin inaga waxaynu haysanaa af Soomaali wuu iska baran doonaa haddii alla yidhaahdeen markaasaad waxaad diidaysaa inuu isagoo af Soomaali jajaban kugula hadlo markaasaad adigu af ingiriisi jajaban kula hadlaysaa saxanga ma adaa af ingiriisiga jajaban ku hadlaya isagana waxaad u diidaysaa af Soomaali jajaban markuu hadlaad ku qoslaysaa maya ilmahan inaan dhiiri geliyo weeyaan af Soomaaligiisa jajaban inaan soo dhaweeyo weeyaan inaan wax u biiriyo weeye inaanan anigu af ingiriisi jajaban kula hadlin weeyaan ilmahayga haddaad rabto markaa waxaynu nimi meel dagaal uu ka jiro ninka hindiga ahi markuu waddankiisii joogo dagaalkan ku jiray India boqolaal af baa lagaga hadlaa boqolaal diimood baa lagu haystaa boqolaal dhaqan oo kala nooca la haystaa saadaradeed markuu waddankiisii joogay buu qof feejig oo fayow ahaa oo ilaalinaya diinkiisa iyo afkiisa siiga ka yimi India halkan markuu joogo waa siig afkiisina uu ku hadlaya dabcaabudka jooga India ka yimi halkan markuu joogo waa dabcaabud afkiisina siisibu ugu hadlaya muslimka joogana afkiisii siisibu ugu hadlaya isagoo 5 qarni jooga inana kuwaynu keenay baa imka afka laba garanaynin iyagoo nool aynu la ordayno kuwaynu keenay ayaa waxoogaa ingiriisi iyo jajaban garanaya umas ingiriisiga ku hadlayaan oo dhammaan waa tan suuqa suuqu wax kaga iibsan karaa kuna warwareegi karaa laakiin af cilmiyeed maaha ama af culture xambaarsan maaha haddii culturally loola hadlo ma fahmayo marka kiisiina wuu lubiyey ku kalena ma haysto in aad u badan Soomaalida af Soomaaliga la liita umamkuna maadaama caynka warkayaan af dhintay bay ummadaha qaarkood soo noolay yuhuudda ma taqaana dawlad maanta yuhuud la yiraahdo soo ma maqashaan Israa'iil la yiraahdo kan jirta af dhintay bay soo nooleeyeen si ay dadkooda wax ugu baraan oo u noqdo luqada rasmiga ee waddanka af cibriya dunida ku hadli jiray kaasa inta dib loo nooleeyay maanta takhasusaadka daqiiqe dunida qaar kamida lagu qoraa kamida jaamacadka dunida ugu horeeya maanta ku yaala Israa'iil qaar kamida teknolojiyada badbay dunida hogaamiyaan iyagoo ku barta maxay af cibri af kumanaan sano ka hor lagu hadli jiray intay dib u nooleeyeen bay waxa ka dhigan af nool inana mid noolo hadda dadkii ilaahay joogaan bay rabnaa inuu dhinto أنا عرفت في إنجليزي قال إن شاء الله دين تقولها في إنجليزي كيسود جيسانية وقولها في عربي كيسود جيسانية سأصابه هاي سطح كو أنا وحكم بفهمه مركي قصلان بالله قصلا لكن وحنا كما قرته وحرسم جي مركي وحي هاي واللغة واددني مديني waxaan adigu qofkaaga weyn Soomaaliya wali xiisaha ugu haysta inaad ku noqoto u jeceshay dadka aad afgaranaysa culture-ka aad garanaysa dhaqanka aad fahmaysa isagu laakiin midna ma rabo way culture-koodana ma yaqaan dhaqankoodana ma yaqaan si uu fakarayana way afkaasida hadduu qofku afka waayo afkaad si rasmi ah u garatay dhaqankiisa aad baratay idan inagu markaynu nimid dhulka kan